kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena qodobada aad daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya Cabdiraxmaan Ciro oo ku dhawaaqay tallaabo culus oo ka dhana Djibouti dhaqdhaqaaqyadii ugu waaweynaa oo hadda la qaadayo ciidanka Djibouti oo durbo markaas laga hortagaya tallaabooyinkii ugu waaweynaa oo hadda socda qorshaha xasaasiga ah ee wada hadalada mucaaradka iyo dawladda oo toddobaadkan dib loo ambaqaadayo beesha caalamka oo shuruudo culus la timid markan xogihii ugu dambeeyay ee hadda laga helayo diyaar garowga Puntland ay ugu jirto ka hortagga tallaabooyin halis oo deegaanadeeda ku wajahan iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay caalamka iyo waxa ka soo kordha wararka intaynu ku guda jirna ama soo kordha ayaa daawan doontaan balse marka hore si aan faa'iinta u guda galno waxaan ka dalbanayaa in muuqaalka aad noo share gareyso like saarto meel fog gaarsi qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee la xogaha xasaasiga iyo warbixinada halkan aynu ku soo gudbino adigoo rukumanaya barteena YouTube channel sidoo kale furo gambalaalka digniinta aragtiyadana qaybta hoose faallada ama commentiga inoogu reeba waa hagaag waa 7 bisha July hadii aynu eegno wararkii ugu dambeeyay dulmarka aad ku daawateen markana adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada ganacsi adigii ubadkaaga si sahlan ku barta quraanka kariimka markasul ihsaan online waxay diyaar la tahay barashada quraanka kariimka iyo shareecada islaamka 24 saac markaskan waxaa diyaar idinkugu ah macallimiin isugu jira rag iyo dumar xeel dheeryaal ay madrasadooda ka aflaxeen arday fara badan oo ku sugan gudaha dalka iyo dibadiisa si aad uga faa'iideysato fursadan qaaliga ah fadlan la xiriir lambarada shaashada kaga muuqda waxaa isu soo taraya wararka ka imaanaya Somaliland ee la xiriira tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee Cabdiraxmaan Ciro xukuumaddiisu ay u qaadayso ka hortagga qorshaha halista ah ee xukuumadda Djibouti ee Ismaaciil Cumar Geelle uu hogaamiyo taasi oo ku saabsaneed kadib markii saacadihii ugu dambeeyay la ogaaday in ay Djibouti qaaday tallaabooyin dheeraad ah oo ka dhana Somaliland gobolka Awdalna ay ka wado dhaqdhaqaaqyo khatar ah halisna ku ah jiritaanka Somaliland taasi oo lagu tilmaamay inay tahay tallaabadii ugu weyneed waxaana la dardargeliyay qorshayaasha aadka xasaasiga u ah ee arrimahan ku saabsan iyadoo oo maalmihii la soo dhaafay ay socdeen tallaabooyinkii ugu waaweynaa ee arrimahan la xiriiray xukuumadda Ciro ayaa tan iyo markii ay ku dhawaaqday tallaabooyinkoodii ugu dambeeyay iyo go'aanadii ugu waaweynaa ee ku saabsanaa arrimaha xasaasiga ah iyo mowduucyada la xiriira go'aanada qaarkood waxa ay muujinayeen in tallaabooyinkaasi loo qaadayay si degdeg ah iyada oo la eegayo mar kale marxaladaha ugu dambeeya haddana xukuumaddu waxay heegan buuxa gelisay tallaabooyin waaweyn ay u qaaday dhanka ciidanka iyada oo ammaanka gobolada Awdal Salal iyo sidoo kale goobaha kale ee Somaliland iyo Djibouti ay xiriirka ka wadaagaan markaasi aad loo dardargeliyay ciidamadii ugu badnaana halkaasi la geeyay si loo diyaar garoobo xaalad walba oo ay Somaliland kaga wajihi karto dhanka markaasi ee Djibouti iyo halisaha ka iman kara Djibouti ayaa loo arkaa inay tahay mid kamid ah cadawga ugu xun ee Somaliland tallaabooyinka halista ah waday waqtiyadii ugu dambeeyay go'aano waaweyn oo soo ifbaxay ayaana hadda muujinaya in tallaabooyinkii ugu dambeeyay loo qaaday go'aanada markaasi looga hortagayo qorshahan xasaasiga ah iyada oo xukuumadda Ciro ay door tallaabo oo degdeg ah waliba wargelintii ugu dambeysay amarsiintii ciidanka lagu dhawaaqay taliyaha ciidanka militariga Somaliland ayaa bixiyay amar ciidan oo xoog leh oo xuduudaha lagu ilaalinayo sidoo kalena looga hortagayo hubka la sheegay in sifada sharci darrada ah ay Djibouti ku soo gelinayso deegaanada Somaliland waxaana socda dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee arrimahaas ku saabsan oo waliba looga hortagayo iyada oo aad ay u xoogan tahay dhacdooyinkii ugu waaweynaa iyo qorshayaashii ugu xasaasisanaa ee arrimahan la xiriira hubkan oo lagu tilmaamay inuu yahay mid sharci darro ah sifa aan sharci ahayn ku soo galaya deegaanada Somaliland ay markaasi Djibouti waxay ku doonaysay inay soo geliso balse waxaa tallaabooyin dheeraad durbahada qaaday dhinacyadan sida gaarka uga shaqeynaya tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee looga hortagayo arrimahan dood badan ayaa ka taagneyd in dhowr tallaabo oo la qaaday iyo sidoo kale saameyn xoogan oo ka dhalatay dhaqdhaqaaqyadan qaarkood inay abuureen xaaladihii ugu dambeeyay ee go'aankan ku saabsan iyo mowduucyada la xiriira tallaabooyinka aadka u culus ee sida gaarka ah loogu muujinayo marxaladahan kama dambaysta ah
ee ku saabsan arrimaha doodaha badan abuuray, iyada oo dalal kala duwan oo caalamka ay si weyn u taageereen go-aanka Cabdiraxmaan Ciro iyo mowqifka Somalilan lagu difaacayo jiritaankeeda, taasi oo ka dhigan hadda inay tahay tii ugu weyneed ee mar kale lagu dardargelinayo qorshahan xasaasiga ah ama ku saabsan arrimihii ugu dambeeyey, iyada oo weliba ay hadda xoogga saarayaan dhacdooyinka waaweyn iyo go-aanada kama dambeysta ah ee ku saabsan dhacdooyinkii ugu dambeeyey ama go-aankii ugu cuslaa tan iyo markii lagu dhawaaqay qorshaha kama dambeysta ah ee sida degdega markaasi Somalilan ay uga hortegayso Djibouti iyo halisaha kale ee kusoo fool leh. Markana dhinaca kale haddii aynu eegno, waxaa dib u bilaabanaya wadahadaladii u dhexeeyay mucaaradka iyo dowladda. Beesha caalamka ayaana shuruudo adag markan la timid, iyada oo maalmihii ugu dambeeyey ay si gooni wakiilada caalamka ula kulmeen dhinacyadii ishayay ee mucaaradka iyo dowladda. Wadahadaladan ayaa waxay yihiin kuwii ugu dambeeyey, iyada oo la qaadayo tallaabooyin aad u culus ayaa haddana waxaa soo taraya dhaqdhaqaaqyo kala duwan, iyada oo mar kale ay ku dhawaaqeen dhinacyadan dhexdhexaadinta wada ee ka shaqeynaya sidii laisugu keeni lahaa xubnahan siyaasiyiinta ah ee horey dowladda xilalka uga soo qabtay, qaarkoodna hadda ay xilalka hayaan, oo ismariwaaga uu ka dhexeeyo in mar kale labada dhinac markaasi laisku hor keeno. Waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta dalka dib ugu soo laabtay wadahadaladaasi usoo laabtay ee u yimid Farmaajo, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, oo markaasi qeyb ka noqonaya xubnaha wadahadalada mucaaradka iyo dowladda markaasi ku biiraya, isagoo hore u sheegay inuusan mucaarad ahayn oo uu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya. Ayaa haddana waxa ay beesha caalamka ku qasbeen in keliya shirku uu laba ujeedo uu leeyahay, kaasi oo ah in markaasi arrimaha doorashooyinka looga hadlayo, iyada oo lagu saleynayo qodobka labaadna uu yahay ku saleynta mucaarad iyo muxaafad, iyadoo loo kala baxayo oo aysan jirin cid saddexaad oo ay beesha caalamku ama wakiilada caalamku ay hadal siin karaan, taasi oo ay mar kale xoogga ku saarayaan dhinacyadan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ama tallaabooyinkii ugu waaweynaa, iyada oo xoogga la saarayo dhacdooyinka kama dambeysta ah iyo go-aanada arrimahan la xiriira. Qorshaha socda hadda ee wakiilada caalamku ay markaasi ku dhexdhexaadinayaan xubnahan siyaasiyiinta mucaaradka iyo dowladdu ayaa ah kii ugu dambeeyey, waxaana kulamadan la filayaa inay ka dhacaan gudaha xeyndaabka Xalane, halkaasi oo ay mucaaradku ku aaminayaan keliya wadahadaladu inay markaasi ay yihiin kuwo ama ku miro dhali karaan, ama markaasi si xora mucaaradku ay ula goosgoosan karaan dowladda, iyagoo ka baqanaya in markaasi wixii hore u dhacay oo kale ay soo laalaabtaan. Mucaaradka ayaana ku adkeysanaya maalmihii ugu dambeeyey kadib wakiilada caalamka kulamo ay la qaateen in aan la aqbali karin kulamo maalmo socda haddana wax natiijo aan ka soo bixin, si la mid ah sidii kulamadii hore ee muddada 3 maalin 4 maalin iyo ka badan socday haddana natiijo la-aanta kusoo dhammaaday. Kani waxay ka doorbidayaan inuu noqdo mid markaasi natiijadiisa laga arko, taa oo dabacsanaanta mucaaradku hadda ay muujiyeen iyo sidoo kale in lagu qasbay inay ka tanaasulaan go-aanadooda qaarkood ay muujinaysaba in ay wakiilada caalamku ay ka dhigayaan kulankii ugu dambeeyey ee dhexdhexaadin ah oo dhinacyadan loo qabanayo si laisugu soo dhoweeyo. Haddii markaasi ay mucaaradka iyo dowladdu markan ku heshiin waayaanna waxa ay noqon doontaa in wakiilada qaarkood ay dalka isaga bixi doonaan sidii ay hore u sheegeen, iyaga oo aadi doona halkii ay ka yimaadeen ama dalalkoodii, ama ugu yaraan dib ugu laaban doona xarumahooda magaalada Nairobi, halkaasi oo dhaqdhaqaaqyada ay dib markaasi ay uga bilaabi karaan. Xogaha hadda aynu helayno ayaa muujinaya in tallaabooyinkii ugu dambeeyey loo qaaday dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee arrimahan ku saabsan, iyada oo wakiilada caalamku ay ku adkeysanayaan sidii loo qaadi lahaa dardargelinta qorshayaasha xasaasiga ah ee ku aadan xilligan kala guurka iyo sidoo kale dhamaystirka arrimaha marka la xiriira doorashooyinka dalka, hanaanka loo aadayo haddii doorashooyin toos ah oo weliba qof iyo coda oo tan xisbiyada badan ee dowladdu ay ku doodeysa la aadayo, iyo haddii tan doorashada tooska ah ee markaasi 4.5kana aan laga guureynin ee mucaaradka iyana ay ku doodeen, iyo haddii la aadayo, balse waxa ay labada dhinacba sugayaan kulamada ugu dambeeya iyo waxa kasoo bixi kara.
markaana dhinaca kale haddii aynu eegno Siciid Cabdulaahi Deni hogaamiyaha maamulka Puntland ayaa waxa uu deegaanada maamulkaasi ka wadaa dhaqdhaqaaqyadiisii ugu dambeeyay ee uu isku difaacayo iyada oo weli ay socdaan tallaabooyin waaweyn ayaa haddana waxaa hadda isoo taraya dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee arrimahan ku saabsan iyada oo ay markaasi hadda xoojiyeen dhinacyadani qorshihii ugu weynaa ee ku saabsan arrimaha kala duwan iyo dhacdooyinka waaweyn. xogaha aynu helayno tallaabadan ayaana muujinaysa in hadda ay tahay tii ugu weyneed ee la xiriirta qorshayaasha sida gaarka ah markaasi hadda xogaha la helay ay u muujinayaan. Deni ayaa dhowr tallaabo u qaaday sidii uu uga hortegi lahaa qorshe kasta oo ku saabsan arrimaha ugu dambeeya ee sida gaarka ah markaasi loo xoojinayay waqtiyadii ugu dambeeyay iyada oo la eegayo mowduucyada kala duwan. waxaana hadda isoo taraya tallaabooyinkii ugu dambeeyay iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa iyada oo ay Puntland u diyaar garoobayso loolan kasta iyo sidoo kale hardan walba oo ay la gelayso dhinacyadan ay ishayaan. waxaana xogaha hadda aynu helayno ay u muuqdaan inay yihiin kuwii ugu dambeeyay ee go'aanada qaarkood markaasi dardar geliyay. tallaabadan ayaana waxa ay tahay tii ugu weyneed ee ku dhawaaqisteeda si gaar ah ay hadda dhinacyadan ay uga shaqeynayaan. xogaha aynu helayno ayaana muujinaya in ay markaasi hadda xoogga saareen tallaabooyinkii ugu dambeeyay iyo go'aanadii ugu waaweynaa. waxaana ay mar kale u muuqataa si gaar ah in ay Puntland ugu diyaar garoobayso difaac adag iyo dagaal ka dhan ah fila Soomaaliya oo qodhoodu markaasi hadda ay ku socoto. ugu dambeyntiina haddii aynu eegno markan wararka caalamka iyo wararkii ugu dambeeyay bariga dhexe waxaa xogta la helay 9 wadan ee haysta hubka nuclear-ka iyo tallaabooyinka waaweyn ee hadda socda ay dhammaantoodba u muuqdaan kuwa aad u xoojinaya. nuclear-kan ayaa dood badan ka dhaliyay dalalka bariga dhexe kadib markii Iran ay ku dooday in nuclear-ka ay si gaar ah u samaysato kadib duulaanka Ruushka ee Ukraine. barnaamijka nuclear-ka waxa uu noqday mid hadalhayn badan dhaliyay iyada oo la sheegayo in hubka nuclear-ka ah uu hoos u dhac weyn ku yimid tan iyo dagaalkii qaboobaa. boqolaal madax ah oo nuclear ah ayaa muddo kooban gudahood lagu ridi karaa iyada oo khubaradu ay markaasi sheegayaan in wadan kasta oo hubka nuclear-ka haysta uu qorsheynayo sidii uu ku cusboonaysiisan lahaa hubkaasi. wadamo badan ayaa markaasi qarsaday hubka nuclear-ka laakiin waxaa la og yahay in ay jiraan 9 wadan oo leh in ka badan 9,000 oo hubka nuclear-ka ah. waxaa xogaha laga helayo wadamadaasi ay muujinayaan in ay yihiin keliya dowladaha haysta hubkaasi nuclear-ka iyada oo ay hadda u muuqanayso in dalalkaasi ay ugu horeeyaan Mareykanka, Shiinaha, Ruushka, Ingiriiska, Faransiiska. waxa ayna saxiixeen heshiisyo ku saabsan arrimaha hubka nuclear-ka. sidoo kale Hindiya, Israel iyo Pakistan ma aysan saxiixin dhankooda heshiiskaasi. waqooyiga Kuuriya waxa ay iyana dhankooda heshiiska ka baxday sanadkii 2003 iyada oo heshiisyada hore loo saxiixay tan iyo 1900 markaasi 97 iyo ka horba ay ahayd kuwo markaasi dalalku ay saxiixeen. ilaa 191 dal ayaa arrimahan ku lug leh iyada oo dalalka hadda haysta ee 9 wadan ee ugu xoogan ay yihiin dowladaha aynu idiin carabownay ee ah ilaa iyo 9 dowladood oo kala ah Mareykanka, Shiinaha, Ruushka, Ingiriiska, Faransiiska, Hindiya, Israel, Pakistan iyo Kuuriyada Waqooyi oo ah dal iyana markaasi si gaar ah hadda ay ugu diyaar garoobayaan xaaladaha ugu dambeeya ee nuclear-ka. guud ahaan daawadayaal barnaamij wareedkeenina waa naga intaa.